markaan waxaan soo fiiri doonaa section 4.4 common interview questions su'aalaha ugu badan ee interviewga la isweydiiyo oo very common iska ah internationally globally la isweydiiyo locally meel walba la isweydiiyo markaas inta badan qofka markii uu soo fadhiisto su'aalaha la weydiinayo waxaa lagu bilaabi doonaa general questions warm up questions su'aalo caadiska ah iskuuleysi ah in qofka lagu sii bilaabo marka hore about you, your skills and motivation in la weydiiyo qofka. Waa soo fadhiistay, salaamu calaykum soo dhow. Bal isi sheeg yaa waaya Cali. Cali qofku yahay noo sheeg taariikhda kooban 2 daqiiqo nagu soo koob. Waa su'aal mar walba qofku fiilinayo. Tell me about yourself. Marka su'aasha kale aad ka jawaabaysid marka ma laga rabo inaad ka sheekaysid xaafadii aad ku dhalatay xaafadii aad ku barbaartay dugsi quraanka meesha ka bilowday macalinka dugsiga magaciisa waxaas ma laga filayo xitaa mararka qaar da'da xitaa noo sheegin magacaaga oo saddexan meesha wax ku baratay iskuul hebel ah waxbarasho uga baxay jaamacad taqasuskaasan galay kadibna waxaan ka soo shaqeeyay meel heblaay maalinkaas ilaa haddan meeshaan joogaa daasid wax la xiriir shaqadaada marka adiga ha bixin wax ka baxsan wixii lagu weydiiyay ha ka dhex bixin adiga maybe inay su'aalo dheeraad ku keenta laga yaabaa iyo dhibaatooyin kale why do you want this job that's very common shaqadan maxaa u soo xareysatay why company badan jiro company hore ala soo shaqeyn jirtay maxaa ugu soo dooratay aniga noo sheeg marka waa inaan horeer ataqaana su'aasha si looga jawaabo runtii markii aan fiiriyay khibradda company-gan uu leeyahay iyo sumcadiisa waxaan jeclahay inaan contribution ka geysto magac ku sameeyo waxyaabahaas kale marka behavioral questions ajiro behavioral questions in xirfadahaadii shaqooyinkaada wax laga weydiiyo past experience predict future performance haddii kuwa hore wax laga weydiiyo kuwa soo socdana kuwii hore sidaa ku xalisa oo kale ayaa laga dhex arki karaa markaas describe a time you solved a problem at work ma jirtaa wax xal loo weysnaa oo adiga aan ta qabata aan xalisay weli ma jirtaa so sheeg marka adigoon aad u faanayn dadka qaar maybe inay iska faani karaan بدي كلام نيو مالش وحنتي أو اسكول حياسن مانجر اللي قد جي اسكول حياسناد شقاريه دن هين اسك عيار جرين نظام مش كده جي فينجر برينت نسميه جوب ديسكريبشن عن قري قفل برول كيسي يعني وعلامي اسكول حياة ولا ماضي مركي شقف لقادنا سفر أو قاتي دن ماشي وحن كده جو مال أو ستيبل كده جي قاب مو عاوز كلاه دي لكن فان كبد سد dhibaato waay inkastoo interview dhan ba ay tahay in la isgado laakiin adigoona ka badbadin oo realistic oo ka dhigay laga rabaa the last section oo isweydiiyo badan waxaa ka mid ah situational questions in la weydiiyo law situation how do you handle a future work scenario wax aan dhicin ayaa la weydiinayaa sidee ku xalin doontaa how do you handle tight deadlines shaqo lagu qaban jiray 3 maalin ayaa waxaa lagu sheegay 1 day before waxaa lagu dhahay fadlan shaqadan qabo waxaan laga rabaa inaad ku dhamaysto saaka ilaa caawada bas beritana waa laga rabaa booska loo jeedin doonaa maxaa sameynaa markaas oo kale wallahi aniga ma yeeli lahayn ma dhaysaa may I will try my best waa dadaali doonaa waa qaban doonaa habeenkaas waa u dhafar doonaa then adiga waa lagu fiirinayaa markaas marka waxaan rabaa inaan isla fiirino more examples in the attachment-kana waxaan rabnaa inaan ka fiirino su'aalaha ugu badan iyo qaabka looga jawaabi karo markaas si oo brief ayaan rabnaa inaan soo fiirino insha Allah okay bal meeshaan isla fiirino su'aalaha ugu badan ee la isweydiiyo badanaa waxaan ku bilaabi doonaa general questions aan ku bilaabi doonaa kuwii aan dhahaynay warm up kuwa qof walba marka uu hore soo fadhiisto lagu tuurabo marka ay naftarkeeda waxay u baahan tahay some preparation u baahan tahay xifdis maaha habeenka interviewga galaysid meel fadhiisay su'aashii la weydiisay sidaan wax beddelaa maaha laakiin ogow waa inaan ka fogaataa waxyaabaha maalayaan ay mararka qaar tusaale ma kana tell me about yourself alwidi tell me about yourself okay marka dii kaasoo kale lagu weydiiyo waa inaad taqaanaa wax ku saabsan nafsadaada nooga sheekay okay mar walba waa inaad ku nuuxsataa oo ku taagsataa
waxyaabaha shaqada aad u tartamaysa la xiriira. Tusaale ahaan waxaa u tartamaysaa marketing. Aniga magacayga waa Cali. Aniga dugsi hoose iyo dhexe sare waxaan ku qaatay school X. Jaamacaddana waxaan qaatay Bachelor of Marketing ayaan qaatay. Bachelor of Business, Department of Marketing ayaan qaatay. Okay. Anigoo sanadka labaad ah waxaan ku biiray internship ahaan Company X. Labadii sano ugu horreeyay ayagaan la joogay. kadibna sanadkii saddexaad markaan ahaaba iyo sanadkii afraadna shaqaale toos ayaa waxaa liigu qaatay company kale. Last 2 yearsna marka jaamacadda aan ka baxayna waxaan la joogay company kale. Waxaana bartay xirfado aad u fara badan. Marka adiga mar walbaba waa in areas aad ku dhex jirtaa mararka qaar. Why do you want to this job? Haddii su'aalaha noocaas oo kale la isweydiiyo, shaqada noocaan ah maxaa u rabtaa haddii lagu weydiiyo in qofka uu yaqaano muhiim ah markaas oo kale. oo waxoogaa yar uu yaqaano sababta ku doortay. Sida inuu qofka dhigi karo waxaan rabnaa xirfadeeda sii horumariyo, meesha kaliya aan ku horumari karno waxaan u arkay inay meeshan ay tahay oo kale mararka qaar. Okay. way ku weydiin doonaan why company kala badanaa jira anaga maxaa noogu imaatay kaligeen. You see, waa la weydiinaya company badanaa jira laakiin maxaa anaga nagu soo dooratay. Marka waa ina dhigi kartaa waxaan kusoo doortay sumcaddii magaalada aad ku leedihiin iyo marka aan fiiriyay meesha kaliya la jaan qaadi karo waxay noqotay meeshan and so on. What is your strength and weakness? Waa su'aalaha mar walba la isweydiin waayo. Your strength and weakness maxay tahay? maxaa ku xoogantaa adiga maxaana ku liidataa? maxaa ku xoogantaa haddii lagu weydiiyo? That's very simple. Aniga nin waxaa ahay oo aad u furfuran oo shaqo yaqaan ah, hard worker ahay, shaqadeeda nin kasoo bixi kara ahay. Okay, waa is amaani kartaa. Marketing maadaama laga qaadanayana public speaking kana qataraan ku ahay, dadku waa kala dhicin kara aniga. Okay, what's your weakness ay imaanayso? maxaa ku liidataa? Aniga runtii wax weakness ma lihi, qofka yeelas ma lahan. Marka always you have to tell the truth. runta sheeg, run laakiin oo dhaawac geysanaysa ha sheegin markaas. Tusaalaan macalinima u tartamaysaa, what's your weakness aan lahayn? Aniga waxaa dhahday dad fara badan ma la hadli kari, aadna u xishood badan aa dhahday. Okay, shaqada lagu rabo waxay tahay fasal 100 arday lagu dhiibi rabaa, xishoodna ma shaqeynayo, taasoo kale caqabad kugu tahay, lama sheego waxaasoo kale. Marka weakness sheega dul laho, waxaa la sheegaa weakness oo shaqada xiriir aan lahayn. Kasoo qaad software developer aad tahay, softwareda laga yaabaa inaad develop garaysid. Su'aal lagu weydiiyo what's your weakness? waxaa dhahday aniga public speaking kama ku fiicne, aniga coding ka ayaan khatar ku ahay, computerka la tacaamulo bis. Laakiin maalmahan dambe waxaan aad u diyaariyaa koorsooyin ku saabsan public speaking oo kale, waxaana u maleysaa maalmahan in caqabadaas xoogaa yar soo xalinayo. So marka weakness ka sheegtid, weakness yar sheeg, shaqada xiriir lahayn, weliba soo raacsi inaa maalmahan dambe shaqadaasi xoogaa yar aad soo kabaysa markaa. Laakiin haddaad sheegtid weakness oo shaqadaada toos caqabad ugu ah, taas waxay u badan tahay in aad shaqada ku weyn doontid. Okay, dadka qaar maxay sheegaan marka weakness-ka maxaa waaye? Weakness xoogaa yar ammaan aha jira mararka qaar. waxaa leedahay aniga waxaan ahay I am always perfectionist aan leedahay. Perfection, perfect wax walba inaan noqdaan ka rabaa. So dadka noocaas ah waxaa loo yaqaanaa perfectionist. Tusaale waxaa waaye design aad samaysay, designka aad samaysay ma ku qancaysid because waxaa ka dareemaysaa xoogaa yar qalooc, marka waa ku celinaysaa maanta dhan. You do a lot of that task again and again and again. waa ku celinaysaa. Marka waxaa leedahay marmarka qaar waxaan is arkaa leedahay shaqo yar anigoo ku celcelinayo marar fara badan, anigoo ka rabo inay noqoto shaqadaas shaqo oo perfect ah. So dadka noocaas waxaa loo yaqaanaa perfectionist. Laakiin hadda kadib shaqada noocaas oo kale ah waxaa waaye waa iska dhaafi rabaa oo kale. dadka qaar marka la weydiiyo su'aalaha weakness-ka maxaa waaye waxay dhahaan aniga weakness-kay waxaa waaye dadka kale waxba ma weydiistaba, help ma weydiistaba. So mararka qaar dhibaata igu taagan, some bags aa jira ama some errors aa koodka iga qabsanayo, waxaan rabaa inaan aniga qof weydiinin inaan kaligay xalliya. That's why marka aan xalay u dhafray 2 maalin shaqo badan ma qaban, problemka asiga inaan xalliya rabay. laakiin hadda maalmahan dambe waxaan baranayaa wax loo yaqaano teamwork. wixii dhibo waqtiyan siiya, haddii hal habeen iyo hal subax haddii lacala igu adkaato shaqadaas waa qabtaa, waxaan la wadaagaa colleagueskayga, teamka la shaqeeya aan la wadaagaa si problemkaasi aan isla xalino.
laakiin marka hore problem ay ahayd inaa problemka inta ku qabsado aa la seexatid oo hal isbuuc aa la jiifatid oo wax kale aa qaban weysid marka adiga qaab noocaas oo kale ayaa lagu jawaabaa why do you see in yourself 5 years 5 sano kadib xagee isku arki kartaa inaad joogi kartid 5 sano kadib maxaa jeclaan lahayd hadhihin 5 sano kadib wallaahi ma aqaani waxaan qaban doonaa hadhihin future waaye mustaqbal waaye laakiin waa inay kuu sawiran tahay wax fog waxaan jeclaan lahay in kambanigani aan la koro position fiican aan ka gaaro ilaa aan ka noqdo dadka ugu sarreeyo waxaan jeclaan lahaa inaan xirfado badan sii barto haddii bachelor aa haystid maybe waxaan jeclaan lahaa after few years in aan sii horumariyo waxbarashadeeda oo master ilaa PhD aan sii gaaro and so on inaan diyaariyo certificates la xiriira takhasuskayga oo ay ka mid tahay this and this and this so after 5 years waxa ku sii sawiran waa inaad taqaanaa marka meeshaas maybe dadka qaar in dib ku arkaan ma dhici kartaa hadda meeshaan ninka ugu sarreeya noqdaan rabaa ninka ku wareysanayo maybe inuu kaa cabsada dhici karta si kaftan dadka qaar ay dhahaan oo ninkan ma qaadanayo sababta booskayga horaa laakiin saas ma ahan dadka badanaa dadka ku wareysanayo waa dad oo academic ah haddii yihiin haddii lagu marsiiyo processkani dadka ku wareysana dad macquula waaye next 5 years dadada laakiin wallaahi allahna gaarsiiyo maba aqaana sii joogi doono iyo xogaa that's a problem what motivates you to perform well at work shaqadan maxaa kugu hayo maxaa marba u dhigta shaqadan haddii aad ahayd wallaahi bariiskan ka dhacsadaa that's problem shaqadan waxaa ugu haya runtii aniga aadan u jeclahay graphic designka xitaa haddii aan free time helo wax una iska design garaya oo shaqo aan ahayn oo laakiin aniga hobby ah yes marketing manager aa lagaa dhigi rabaa shaqada maxaa kugu hayo ka sokow inaad bariis ka raadinayso ilmo ka korsanaysid wallaahi waa inaad sheegi kartaa marka in ay jirto wax un oo ka sarreeya waxyaabahaas oo kale okay behavioral questions ayaan mar fiirin doonaa marka sidee kusoo xalisay caqabada hadda ka hor ku qabsaday oo kale describe a time you solved a difficult problem at work okay su-aashan waa su-aasha ugu badan mar walbane dadka se u xaliyaan waxay isticmaalaan wax loo yaqaano star waxa la star that feels waxaa laga soo gaabiyaa waxaa laga soo gaabiyaa situation situation star task okay action and the last one is result star allah marka wax walba star waa ku abaalgarin kartaa okay tusaale waxaan problem hadda kor ah halisa sheeg okay tusaale waxaan soo sheegnay finance ayaa meel lagaga qaatay iyo budgeting wax ku saabsan marka waxaa leedahay hadda kor waxaan ka shaqeeyay school oo financegiisa iyo budgetingkiisa aad isugu dhexyaasan yahay marka waxaa lii qaatay in problemkaas aan xaliyo kadibna aan fadhiisiyo lacagta ku baxayso weli lacag aad u badan ahayd mana ku filneen marka maxaan sameeyey waxaan review ku sameeyey expensiga baxa bishaas oo dhan ayaan qorayay kadibna waxaan ogaaday waxyaabaha laga maarmi karo oo maalaya aniga ah saameyn weyn aan ku lahayn shaqada so kuwii ayaan qabtay meesha ayaan ka saaray resultiga waxaa soo baxday boqolkiiba 40 ka mid ah lacagtii bixi jirtay meeshaas ayaan ku dhaqaaleeyay that's a factor right figures aan kala keentay boqolkiiba 42 boqolkiiba 50 ka mid ah lacagtii bixi jirtay waa soo yareeyay ayadoo waliba wax caqabad ah aan meesha ka jirin oo kale korontadii sida loo isticmaali jiray AC shaah la cabi jiray baabuurta sida ay ahaayeen laakiin waxyaabo waxa ka bixiyay meesha oo maalayaan ah yes qaabkaas oo kale markaas so that's the result ka soo baxda markaas ku apply macallina tahay waa ku apply kartaa graphic designer tahay video editor tahay meesha aad ku beertay marka hore sidee ahayd page code engagement badan ma lahayn markii la qaatay oo ii sheeg qaybtaas media manager laga dhigay waxa la xilsaaray inaan page-kaas kiciyo maalinkaas wuxuu ahaa 10,000 ay qof ku xirneed kadibna barnaamij cusub aan sameeyay xiisa leh waa kala kiciyay kadibna page-kii within 5 months waxa ku soo xirmatay 1 million subscription ku soo xirmatay viewerskiis waxay noqotay 1 hour kadib inay hore ka daawato 50 qof that's marka meesha aan gaar meesha soo markaas so su'aalahaas kala
هذا مهم مركز. Tell me about the time you worked successful in a team. Teamwork مهمة marka la isweydiiyo. So shaqada teamwork ma sameysaa dadka see ula tacaamuli jirtay. Share an example when you disagreed with a colleague and how you handle it. Ma jira mar teamkaas khilaafteen arrin la qaban rabay qaabka loo qaban lahaa weligaa ma ka hor imaatay si ka duwan mu aragtay. Yes, ma jirto ma iskhilaafna weligaa ma iskhilaafna ma jirto. Mar adiga saxaneed waa sheegi kartaa. Waxaad dhigi kartaa teamka ay waxay isku raaceen qodobkaas laakiin aniga waxaan ku dooday qodobkaas kale sababtoo hore ayaan usoo tijaabiyey. Marka ugu dambeyn way iga diideen koodii aan qaadanay. ugu dambeyn bad result soo baxday in la qasaaray oo waqti badan meesha ku lumay and so on. Marka su'aalahaas aad u badan yihiin. Qof walbana mid kasta uu jecel yahay waxaa samayn kartaa weydiin kartaa roolkaaga sheeg then su'aasha weydiin markaas kale. Describe a time you missed a deadline. What happened? How do you handle it? weliga shaqo deadline ma lagu dhaafay inta waqti lagu qabtay waqtiga asiga ma lagu dhaafay kadib se ku xalisay because dad badan oo ku sugaya waxay ku dhayeen berrita laga rabaa shaqadii ama shanta bisha la fi lixda maraysa shaqadii weli ma qaban marka maxaa sameyn lahayd se ku xalisay. So you have to show always make honest wa ana u hadashaa bana sheegin adiga marka ben oo dadka qaar beenta hore ka fahmi karaan marka waa inaad sheegi kartaa sidee sameysay deadline-kaas ugu dhacaysaa sababtoo markaas waxa ay haystay caqabado fara badan ay haystay maalmahaas oo kale maybe arday meel ka ahaa imtixaankii ay ugu soo baxay last year anigoo project-kan sameynayay deadline-kan uu sugayay marka waxaan kala doortay wax adiga marka waa inaad sheegtaa markaas. Okay, the last one su'aalaha qaarkood waxay noqon karaan situational questions noqon karaan su'aalo oo la hubinayo go'aan qaadashada markaas su'aalaha hore u sameeyay dhammaan lacala hadii waxaas ugu dhacaan maxaa sameyn lahayd algorithm markaas oo kale. Tusaalahan how do you handle tight deadline aad xiriir ku ah ee lagu dhiibay sidee maxaa sameyn lahayd markaas marka waa inaad dhigi kartaa markaas priorities waxa la jiro prioritize waxa dhigi kartaa maadaama shaqooyinkii ugu badan yihiin waxaan qiimeyn lahaa shaqooyinkii hor yaallo kuwa oo least priority ayaan dib u dhigi lahaa macnaha kuwa laakiin waajibaadka ayagaan hormarin lahaa kuwaasna dib u dhigi lahaa dadka badanaa deadline markay yimaado waxay rabaan galabta qof oo shaah la balansanayo oo la baajin karo caawana ciyaar rabo inuu daawado sheeg wax noocaas oo kale marka baaji waana dhigi kartaa okay time management samee okay qofkaas baaji sorry dheh waa hoola ugu taagan hawsha kala jooji ciyaarta caawa u gambi then shaqadaada dhan meesha dul saar marka so waxyaalahaas kale waa inaad taqaanaa marka what would you do if a client was unhappy with your work maxaa sameyn lahayd qof client ayaa shaqo u qabatay laakiin qofkaasi ma faraxsan maxaa sameyn lahayd wallahi asay u taala aan shaqada u qabtay وصون كوكان أنا سأتهلا ما جرت مركو أنا ليه كرتا قفكاسي أنا ورثان لها وجهي جديان كذا دريمة إنه صام قناع سنين والله فديسان لها وورثان لها then apologize بحين لها رالي قلنا سين لها you see وحانس كدي لها problem كوكشة جنا إنا صحة مرة بنيسان يوصل لها بن maybe problem كوكشة جنا محيد maybe وقت ما كانوا مسي maybe سيد أورا ما سكرم ما سمسي هدي حتى وجعليها إن الله صح وصح issue وشة جنا mar walba waa inaad sheegtaa markaas. How do you handle conflict in your team? Teamkaaga haddii khilaaf oo ka dhaca ka waran teamka la shaqeynaysid sidee maxaa sameyn lahayd macnaha sida caadigan conflict oo teamka dhexdeeda doo yimaado productivity company-ga aad u saameynaysaa sababta team aan isfahansaneen ma wada shaqeyn karaanba sababta nin walba wuxuu rabaa inuu ku xumeeyo ninka kale kan kale ku xumeeyaa wuxuu leeyahay dhankiisa ka jeeftaa baasha أنا ما يسوي قارن مركو أنا عاون كرتا ليه كرتا كين ويدين كرتا لفظ ذين كرتا you see مركا محاسمين لداس خلافتان والله واحد كده يلاقينا حلي الشقة أصعدته يحاول أذكر أما حلي كرتا وحاول الشقة لقى جت جاي وحكم ده والله دانس تقالنا أو يقرب الدنيا واحد يقال ما لها نجا تيدا كفير سنة يحاول لما ذكره مركا سؤال هذا فرق بدنا أيجرو مركا قفل مركا سؤالات وإنه يقانا قاب كل وجه جوابه وحيلتها إنا أنت بدن كجوابني
sample kaane course attachment-iga markii material-ka waa soo raacsin doonaa midka aslada marka muhiim ay ku tahay si gooni ah u sii baari kartaa insha Allah markaas